السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحابة يسود هذا مالك استود كسبنتهين وحان إنه السلام يا سلامة الإسلام كوشرفت بدن سود هذا مالك استود كسبنتين الصحابة إن سود هذا عاو وحان رواء قصير أو ويل يا بيس الأحمرتي أو كصابسن حق جوركه أيام رواء الصحابة عاوينا إن لا شير جريان رواء wixii sheer gareen iyo subscribe iyo like waa xaqiina marka dhageysi wacan waa ku soconayaa qisayar oo kooban weeye oo wiil yaabiisa dhaxmartay oo guur ka hadlaysa weeye asxaabay waxaan rabaa inaad sheer gareysaan dhageysi wacan marka waan noo bilaabayaa qisada sida tan ay u dhacday wiil ayaa qoysba waxay dhaleen hal wiil bay dhaleen halkii wiil iyo aabiis iyo hooyadiis ay ahaayeen waxay ahaayeen reer guura waxay ahaayeen xoolo dhaqato oo reer guura bay ahaayeen xoolay dhaqan jireen xoolo badanna way lahaayeen way iskaga barwaaqa noolaayeen wiilkii yaa weynaaday oo guur gaaray maalin maalimaha ka mid ah wiilkii ayaa aabiis u yimaaday wuxuu yiri aabba inaan guursadaan rabaa aabba waxaan rabaa inaad raali iga noqoto inaan guursado aabbiya wuxuu yiraahday gabar maad meel ku og tahay markaasuu wiilkii wuxuu yiri haa aabba gabaraan meel ku og yahay inaan ku keenaan rabaa oo ii guuriso orod buu dhahay gabadhii ii keen wiilkii gabadhii uu soo waday wuxuu u keenay aabihiis wuxuu yiri aabba waata gabadh inaad ii guurisaan rabaa arag marka wuxuu yiri waayahay dhagax weyn oo meel yaala dhagax weyn oo dhulka yaala ayuu wuxuu yiri ord dhagaxa soo qaad horta intaan gabadha ka wada hadlin wiilkii dhagaxii buu aaday dhagaxii buu soo qaad baa yiri dhagaxa kor u soo qaad wiilkii marka dhagaxa uu qaadi waayay dhagaxa markuu qaadi waayay wiilkii ayaa maxay ahayd dhagax markuu qaadi waayay wiilkii ayaa maxay ahayd aabbihii wuxuu la hadlay gabadhi oo wiilka ka u keenay gabartii aduq wuxuu ku yiraahday ma ninka dhagaxa qaadi waaya miyaad rabtaa oo inaad guursato gabadhi marka way xanaaqto way carartay way ma rabay tiran in aan dhagaxa qaadi karin ani ma rabay tir way isaga tagtay ka dambe wiil uqii wiilkii haddana mar labaad oo kale u soo noqtay wuxuu yiri aabba gabadhi hordaad iga fiijis ay tagtay laba kalaan keenayaa buu dhahay haddana laba gabdhood oo gacmaha wada u keenay wiilkii haddana aabihiisi buu la yimaaday wuxuu dhahay aabina gabdhahan ii guurisaan rabaa haddana wuxuu yiri orod garta gabdhaha intaan ka wada hadlay orod dhagaxa soo qaado dhahay in dhagaxaas ay shuruudda ku xiran tahay wiilkii dhagaxii buu aaday dhagaxii markuu aaday wiilkii asxaabay maxay ahayd dhagax haddana wiilkii buu qaadi waayay dhagax ka culus buu ahaa labadii gabdhood duqi baa la hadlay wuxuu yiri waryaa gabdhow u dhahay ninkan dhagaxa soo qaadi waayay miyaad rabtiin inaad guursatiin u dhahay labadii naag haddana waa la xanaaqo waa la iska dhaafay ninkan ma rabnay dhahan dhagaxa aan qaadi karin haddana ka dambe wiilkii gabar kale haddana soo waday oo gabar kale oo aad u quruxsaneen oo iska foolxun oo madow oo gabdhihii hore saddexdii gabdhood hore ka quruxsan haddana wiilkii wuxuu soo waday labada gabdhood oo kale u keenay saddexdii hore laakiin markan ka quruxsantan way foolxun tahay markaas haddana aabiis u keenay aab wuxuu yiri gabadhan haddana ku keenay maxaa dhahaysaa oradu dhahay dhagaxa soo qaad haddana wiilkii haddana dhagaxii buu aaday wiilkii dhagax markuu qaadi waayay aagduqu wuxuu yiri ma ninkan dhagaxa qaadi la ayaa qabtaa uu dhahay haddana gabadhii ku dhahay gabadhi shibeeda dee wiilkii u tagtay dhagaxii la soo qaaday gabadhii way aamustay wiilkii bay u tagtay dhagaxii la soo xambaartay way la keentay markaasuu dhahay aabbaye markaasuu dhahay okay aabbo gabdhii hore doqomay ahaayeen tanaa fiicane tanaan kuu dhisayaa buu dhahay tanaan kuu guurinayaa buu dhahay gabadhii aa loo aroosiyo wiilkii asxaabay naagtii aa ka aqli badisay gabdhihii kale yaa way caawisay xooggeeday ku caawisay wiilkii kuwii horena way xanaaqeen way carareen marka asxaabay qisadaas jirto naagaha aqli bay markooda ragga ku guursadaan kuwana aqli xumo ay ooga cararaan asxaabay waa ku soo dhawaada sheekada inaad wax ka gurataan waaye
haddee ninka markii imtixaan niila dhig imtixaanka oga cararine maxay eeday saad si kale u fahma ninka asagana gabdhaha inuu si kale u nacmay markii lagu diraayo waa in barkii looga fiijinayo waa in wax ka fahmo markii dhageysi wacan saxaabay shaargareya seesgaraab waan ka baxayaa waana ina salaamahay meel kastoo ku sugantii